السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أنا magacaygu yahay Ridwaan Sakariye Axmed ahna arday medicine ahna gudoomiyaha ururka Rajo ee sanadkan 2024 maanta waxaan sheegi lahaa bal natiijadii ka soo baxday waxyaabaha aynu qabanay iyo waxyaabaha aynu sameynay. Horta ururka Rajo waa urur khayriya ururkaas oo la aasaasay 2017 kaasoo laga aasaasay jaamacadda qaybta caafimaadka kadibna uu soo gudbay jaamacadda qaybteenan hoose si aan u caawino markaan aragnay ummadda baahan ee dadka inagu dhex nool. marka ururka Rajo 2017 ilaa maanta wuxuu u taagan yahay inuu caawiyo ummadda gaajaysan ee ku nool afarta xaafadood ee magaalada. afarta xaafadood magaalada ugu baahi badan kuwaasoo bisha Ramadaan u kan ku caawino raashinka. waxyaabihii ururka nagu dhaliyay waxa kamid ah ama groupkii aasaasay ku dhaliyay waxa kamid ah inay jireen dad badan oo aad u baahan. qaybta jaamacadda Camud waxay tagtaa Khamiistii waxay tagtaa community u baxda arday soo eegta qaybtaas aan ku soo ogaanay dad badan oo aad u baahan taasoo dhibaato nololeed haysato oo inaan dawada la siiyo ay kaga daran tahay xaaladda nololeed ee haysata. ilaa maalinta laga bilaabo ilaa maanta alxamdulillah waxaan noo hirgalay inaan gaadhno sanadkii toddobaad oo xiriira bisha Ramadaan. sanadkii toddobaad sanaba anagoo caawinayna sanadkii u dambeysay waxaan gaadhnay 2023 109 qoys. sanadka maantana alxamdulillah waxaan noo hirgalay anagoo sanadkan qaybinay laba phase 1ka oo ahaa laba phase baan kala sameynay. phase 1 oon qaybinay 41 qoys iyo phase 2 oon caawinay 27 qoys oo marka la isku geeyo noqonaya 68 qoys. waxaa jiray hal qiso oo balse waxyaabaan caawimaad say ku bilaamatay inaan nigeer sheekeeyaan rabay. waxaa jirtay sanadkan 2 sano ka horeeyay 2021 inay dhacday anagoo maalin makhriba inaan rabno inaan qaybino raashinka inay dhacday inaan hooyo u tagno. hooyada markaan u tagnay hooyadaasi waxay nagu tiri waan u tagnay gurigaan ugu tagnay hooyadu waxay haysataa wiil waalan. wiilka waalan ee hooyadu haysataa hooyadu way sooman tahay waa hooyo aad u wada ah ilaa 80 meelaha ku dhow. hooyadaas waxaan ku niri bal hooy xilli afturaan u tagnay maghribkii ku dhow hooyadaasi waxba dabka uma saarnay. waxaan weydiinay su'aashan weydiinay tiimka waxa kamid ahayd hooyo maxaa kugu dhacay maanta afturkii u sameeysan weeyay. hooyo waxay nagu tiri waxaan hayntayda hooyo gaari weyday waanan gaari waayay inaan samaysto laakiin iyaad sugaysaa baan ku odhanay xilligan maadaama maghrib dhow yahay afturnaanad haysan qof sooman naatay. aadka noo bedelay cajaa'ibka waxa kamid ah inay nagu tiri ilaahay saakay soo kiciyay ee saaka ii qadaray inaan soomo ayaan maanta aftur ka sugayaa. marka waxa dareemi kartaa baahida iyo hooyadu sidii gob ahayd. kadibna waxa dhacday raashinkii baan u geynay waxaan yaqiinsanay inay jirto ilaahaasi ama inuu ilaahaasi aaminaada inta leeg wax walba qaban karo ka dadka dhan gaaray oo yahay annaguna aan caawino caawimadeeda ku darsano. kadib waxa dhacday sidaasaan arrinku nagu dhashay. maantana waxaan aad ugu mahadnaqayaa ardayda macallimiinta jaamacadda maamulka xafiisyada iyo dhammaan cid walba nagala soo qayb qaadatay hawsha khayrigeenu wadnay bisha Ramadaan iyadoo aad u yaradkeyd haddana guusha inta la ku soo dhamaatay ayaan aad ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay ardayda iyo macallimiinta waxaan rajaynayaa inaad aad sadaqada ugu sii boorisaan maadaama inuu community aan isku nahay oo dadka la caawinayo inaga la naga keeno inaad aad ardayda aanu sii dhiirigelinaya inaad aad uga qayb qaadataan sanadkan inta hadhay iyo sanadada dambaba. waayo dadku inay iyagu isku tiirsanaadaan waxyaabo badan oo aad u faa'iido badan bay leedahay aad bayna wax badan u gaarsiisaa. ardayduna waa majmaca ama dhalinyartu waa majmaca ay ummadoo dhan ka bilaabmato. sanad ururka Rajo ilaa maanta gudoomiye ka ahay anigu gudoomiyahan ahay aad buu caawiyaa ummadda isagoo dhinacyo badan ka caawiya hawsha Ramadaanta maanta aan duubayna jirto. waxa jirtay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis yiri oo ahaa qof sooman hadaad afuriso adiguna waxaad la mid tahay waxaad helaysaa ajarkiisa mid la mid ah. waxa kale xadiis kale nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam naarta ka gaashaanta walow haata timir jeexeede oo isaguna nabigu kaga hadlay sadaqada. marka waxaan aad ugu boorinayaa oo ugu soo xidhaya inay aad u caawiyaan ummadda ayna aad u istaagaan ururka Rajo ururkaasoo ah urur ay ku bahaysan yihiin dhammaan jaamacadda Camud ardaydeedu oo inay u taagan yihiin ummadda caawinteeda. waxaan odhan lahaa intaa marka anoo soo xidhaya waxaan odhan lahaa hal tixbaan yar ku soo koobi lahaa. waxaa jirtay inuu abwaan Soomaaliyeed bari yiri ilka wada jirkooda hilba adag ku goostaan hadday iniba meel taagan tahay adhax ma feenteen. marka waxaan aad ugu soo boorinayaa wada jirkeennay wax badan ku gaadhaynaa khayr badan aynu ku gaadhaynaa.
jaamacadda Camuudna aad baan ugu mahadnaqayaa maadaama ay xafiisyadu nagala qayb qaateen. Bismillahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahad leh. Dhammaanteen waxaan si fog iyo si gaaban ugu mahadnaqayaa ardayda jaamacadda Camuud. Si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa tiimka aan howlwadeennada wada nahay inaan wada shaqeyno Rajo Student Union. Rajo Student Union waa qayb ka mid ah ardayda jaamacadda Camuud oo ku fikirtay oo keentay fikirka ah in masaakiinta wax badan la qoodiyo oo wax la gaarsiiyo kulli bulshada waxa wax siin kara oo wax gaarsiin kara Ilaahay gacmihiisa inay ku dhargi karaan. Tiimka Rajo walow aan ku jiray 3 sano ugu dambeysay jaamacadda waxa uu qabtay activity-yo ay qayb ka tahay in dadka Ramadaanka wax badan la gaarsiiyo iyadoo iskaashanayaan ardayda jaamacadda haday tahay qaybta caafimaadka iyo haday tahay qaybta kombaska dhamaantood. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ardayda qof wal oo la soo baxay sadaqadaas. Si gaar waxaan kala ugu mahadnaqayaa dhammaan maamulka macallimiinta oo iyaguna qayb muhiim ah ka qaatay laantoodna inay suurto gasheen. Farxad bay tahay in ardayda jaamacadda Camuud oo inta leeg ay gaadho dadka gaaraya 68 qoys sanadkan hirgalay. Sanadkii ka horreeyay ahayd 109 qof. Haddii tira ahaan tacad ahaan la isu geeyo sanadadaasna ay noqonayso dad aad u fara badan. Waa Ilaahay mahadii intaas inay fadligaas 68 qoys oo haysan waxay ku afraan iyo waxaynan cunaan ay Ilaahay fursad u siiyay in ardayda jaamacadda wixii laga qaado ay ku afraan maanta. Farxad bay noo tahay. ardayda jaamacaddana waa guul soo hoyatay. qof wal oo sadaqada la soo baxayna Ilaahay waxaan uga boornay in miisaanka xasanaadka ugu daro kuna guuleeyo. Dhammaanteena waxaan leeyahay Rajo haddii jaamacadda ardaydu dhammaantood oo qof walba ka qayb qaato waxa la gaari karaa dad ka badan dadka la gaaray imika. marka insha Allah aan dadaalkeen ka wada hawlgalno sadaqadaas aan ka wada faa'iideysano. jaamacadda Camuud ma aha jaamacad aqoon ahaan un horumartay waa aqoon ahaan jaamacad aqoon ahaan horumartay karti ahaan horumartay ardaydeedu heer ay fikradooda gaaraan in masaakiinta ay caawiyaan maantana inta ay qoys ay gaareen haddii jaamacaddu dhan isku kaashatana waxaan filayaa in wax badan ay gaari doonto. Anigoo ah gudoomiyaha ardayda jaamacadda Camuud waxaan aad ugu mahadnaqayaa mar hore iyo mar dambaba ardayda jaamacadda Camuud ee ka qayb galay barnaamijkaas kana qayb qaatay ee joobkooga u horay si ay wax u siiyaan walaalahooda muxsiniinta. aad baad mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.